malaynin iswaayida iyo kala tagu inuu sahal yahay haddii aad dayal u haysatidna gugii ay Khadiijo dhimatay looma bixiyeen sanadkii murugada. sanadkii murugada waa sanadkii 10aad ee soo saarista nabiga sallallahu alayhi wasallam. waxaa la oofsaday nabiga xaaskiisa ugu horeysay ee Khadiijo Allah ka raali noqdee. sidoo kale waxaa isla sanadkaasi la oofsaday nabiga adeerkiisii Abu Talib oo uu Quraysh ka difaacayay dhibkoodii. nabiga sallallahu alayhi wasallam murugtiisa ayaa ziyaaday maadaama adeerkiisii gaalnimo uu ku dhintay. qofna uma dulqaadan karo waayida dadka uu jecel yahay, xataa nebiyada ku dheh oo ku darso oo ma aanay ahayn murugo hal sana socotay oo idlaatay ee nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaa dabayaaqadii noloshiisa afka ayuu ku hayay hadalhaynteeda. dadka qaar marka aad weydo inta aad nooshahayba qayb banaan oo kaa dhiman ayay ahaanayaan. waxa aynu nahay aadame cad ka samaysan, ilaahayow ha ii qabanin wixii aan gacan iigu jirin. nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa yidhi isaga oo ula jeeda qalbigiisa. markaasay noqotay orah uu isku samarsiiyo qofka ay xaaladii la soo gudboonaataa. caawa keliga ayaa tahay saaxiib, sidii guri maran oo ay dadkiisa ka hayaameen oo hawanaya ayaad keli u tahay. sidii boosteejo tarin oo guun ah oo laga guuray ayaad keli u tahay. sidii damal buur fiiqeed ka baxay oo aanay cidina hoostiisa harsanaynin ayaad keli u tahay. weysayso, 2 ragcadood tuko, gacantaadana laabtaada saar oo dheh ilaahayow qalbigayga, ilaahayow qalbigayga. yaanay maankaaga ku soo dhicin wax aan ahayn hadalkii rabbigaaga ee ahaa qulnaa laa takhaf, oo ay micnaheedu tahay waxa aanu ku nidhi ha baqin. kadibna wax walba ilaahay u daa adiga oo si yaqiin ah u og wax kasta oo uu kaa qaadayba inay murtiyo ku jirto. inta aad isu turaysana uu isaga kaaga naxariis badan yahay. dhammaanba qadarada rabbigana ay wanaag u yihiin, xataa haddii ay ku xanuunjinayaan. dulqaad iyo dhabar adeeg muuji saaxiib oo haliicin. ma tihid qof u hogta waayaha oo madaxiisa hoos geeya ee laga yaabaa inaad cid kale u tahay tiir ay ku tiirsan yihiin adiga oo aan ogeyn. laga yaabaa dad badani inay ku hamiyeen in ay madaxa hoos u dhigaan oo ay waayaha u liicaan, ee markii ay ku arkeen adiga oo aan liicaynin ay is adkeeyeen oo ay kugu daydeen. maanka ku hay kuwa kuu arka garabkooda iyo gaashaankooda, iyo kuwa aad agtooda ku weyn tahay ee indhaha ka haybadaysiga leh kugu eegaya, iyo kuwa kugu aaminay ruuxdooda ee jidkaas adag ee nolosha aad ku rafiiqdeen. dhammaantooda xasuuso, dhibta ayaa dhayal kuu noqonaysa xataa haddii aanay dhibaato yasiran ahayne. waa walaalkiina Abdixakiin Axmed oo idinla doonaya guusha labada daarood. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.